soo dhawaada Jaalia bal qiyaas adiga ku xiran kayn dhimashaha oo dadka tajiriina ay ugaarsadaan bini'aadamka madadaal ahaan sheekadu waxay ku bilaabanaysaa dagaalyahan lagu magacaabo Bele oo isku diyaarinaya inuu la dagaalamo dagaalyahan kale oo la yiraahdo Johnny. Bele iyo Johnny waxay ahaayeen saaxiibo aad isku dhow sidaas daraadeed qof walba wuxuu filayay in dagaalku noqdo mid adag oo dareen badan leh. Labadoodu waxay ahaayeen dagaalyahanno xirfad leh balse Bele wuxuu ogolaaday cabsi iyo cadaadis inay xakameeyaan. Markii uu helay fursad uu ku weeraro wuxuu si kala joogsiina u weeraray Johnny isagoo si xun u dhaawacay. Ugu dambeyn Bele ayaa guuleystay laakiin guushiisa waxay si degdeg ah isugu bedeshay riyo xun. Waxay kadib dagaalka waxa la ogaaday in Johnny uu dhintay dhaawac soo gaaray. Warkaas ayaa gabi hambar buray noloshii Bele. aqbali kara xaqiiqada inuu si kama ugu dhintay isagoo u adkaysan kara dambigaas Bele wuxuu ka tagay dalkiisa wuxuuna u guuray Thailand si kastaba ha ahaatee xasuusta Johnny waxay sii waday inay maalin kasta sii silciso ugu baxso xanuunkaas Bele wuxuu bilaabay inuu cabitaan khamri cabo si tartiib ayuu bilowdu yeeshay maalin habeen wuxuu ahaa nin sarkhaasan oo isku dayay inuu iloobo wixii hore si uu noloshiisa u maareeyo wuxuu bilaabay inuu ka qayb qaato dagaalo yar oo qarsoodi oo ka dhaca Thailand oo xitaa ka dagaalami jiray tiraasha cadra ah oo lagu qabto hoteelo waaweyn si loogu madadaaliyo dadka taajiriinta ah maalin maalmaha ka mid ah nin taajir oo lagu magacaabo Adrich ayaa yimid si uu u daawado mid ka mid ah dagaalada Bele isaga iyo waardiyihiisa markuu sida geesinimada iyo xirfadda leh ee Bele u dagaalamaya Adrich aad buu la dhacay kadib Adrich wuxuu yimid Bele wuxuuna u sheegay in hibadiisu ku khasaarin lacag yar uu soo bandhigay fursad uu ka qayb galo tartan qarsoodi oo ka dhacaya Myanmar sida uu sheegay Adrich Bele wuxuu heli lahaa 1 milyan oo dollar dagaal kasta ku guuleysto qayb lacagtaas ka mid ah mar hore ayaa la siin lahaa haddii ku guuleysna caqabada ugu dambeeya noloshiisa inteeda kale mar dambe ma shaqayn doono sida xad lagu fikiray dalabkaas Bele ugu dambeyn wuu aqbalay Adrich ayaa markaas geeyay xafiiskiisa wuxuuna koriyay lacagtii horumariska ahayd taasoo heshiiska dhigtay mid aad u soo jiidasho leh si aan qalab labayn Bele wuxuu aqbalay heshiiska maalintii xigtay Bele wuxuu Adrich kula safray diyaarad helicopter oo ku wajahan dhulkeen fog ah markaas ayuu kula kulmay janan awood badan leh oo u muuqda inuu xiriir la leeyahay tartanka kadib Adrich wuxuu Bele baray ka qaybgalayaal kale oo dhowr ah mid wuxuu ahaa ganacsade taajir kuwa kale waxay aabay wiil si wada jir ugu raaxaysan daawashada dagaalada dhimashada waxaa sidoo kale jiray nin magacaabo Marshall oo ahaa naqshadeeye ciyaaraha kombiyuutarka oo aad u xirfad badan ugu dambeyn Bele wuxuu xukumay Sophie oo gabadh ugu dhalay ninka ugu taajirsan dunida markii Bele uu wadiyay inta uu leeyahay goobta lagu dagaalamay Adrich wuxuu siiyay jawaab naxdin leh wuxuu u sheegay in keynta oo dhan ay tahay goobta ciyaarta iyadoo ku fidsan ku dhawaad 260 kiiloomitir markaas ayuu Bele ogaaday xaqiiqda argagax leh dhammaan dadku hadda la kulmeen waxay doonayaan inay ku ugaarsadaan gudaha keynta sidoo qof sharci ciyaarta ugaarsadu waxay wada shaqeyn doonaan si waraadiyaan Bele oo ay u dilaan haddii Bele uu si majlis u badbaado oo gaar dhinaca kale keynta wuxuu ku guuleysan doonaa tartan markuu taas maqlay Bele aad buu la yaabay ma uu rumaysan karin in ciyaar arxan daro oo sidan kale ay jirto inkastoo loo dhibay dhagax ruubi oo qaali ah ka hor inta ugaarsigu bilaaban Bele wuxuu ka walwalsan yahay badbaadinta naftiisa halkuu ka fikir lahaa lacagta dadka kale kooxda ugaarsada ayaa bilaabay diyaarinta ciyaarta dhimashada xaabis ka soo dejiyeen gaari waxayna ku qasbay inay ordaan kadibna si naxariis darro ay u wada togteen markaas uu Adrich ugu dambeyn runta u sheegay Bele oo u sharxay in dhammaantood ay ka mid yihiin dadka ugu taajirsan dunida waxayna ka daaleen madadaada caadiga waxayna la qabsadeen ugaarsiga dadka si ay xiiso ugu helaan tilmaameedku xigana wuxuu ahaa Bele laftiisa kadib markuu arrintaas shacay Adrich wuxuu Bele siiyay dhalabadan wuxuu ku yiri waxay haysataa kaliya 2 daqiiqo si aad keynta ugu carruurto kadib ugaarsiga ayaa bilaaban doona Belena aad buu u wareeray wuxuuna diiday inuu ka qayb galo tartanka wuxuuna u sheegay inuu soo doonayo ciyaartan qodobka isla markaana uu doonayo in guriga dib loogu celiyo si kastaba ha ahaatee xilliga cashada xerada jananka askar hubeysan ayaa si malfana u hareereeyay ku garwaaqsi inuusan doorasho ka haysan Bele isla markii wuxuu caaray gudaha keynta sidaas ayuu ugaarsiga dhimashada ku bilowday kooxdii ugaarsada ayaa si degdeg keynta ugu fadhiyay iyagoo raadinaya Bele kamid ugaarsada oo la yiraahdo Maadu ayaa go'aansaday inuu kooxda ka tago si kaligiis u raadiyo Bele muddo raadinay kadib Maadu ugu dambeyn wuxuu Bele ku arkay meel u dhow biyo dhac isla markiiba uu weeraray Bele wuu baxsaday wuxuuna isku tuuray biyaha hoostiisa kadib Bele isla markaana biyaha uga soo baxay wuxuuna qaaday weerar xooggan dagaalka si degdeg ayuu dhamaaday Maaduna halkaas ay ku dhintay markii ugaarsatada kala yimaadeen oo ay arkeen meydka Maadu ma aysan baqin haba yaraatee taa beddelkeeda aad bay u farxeen sababtoo ah Bele hadda wuxuu isku muujiyay inuu yahay bartilmaameed halis ah oo aad u xiiso badan ka kale Marshall wuxuu qorsooday kaamirada uga duubiyay ugaarsiga oo dhan muddo kadib ugaarsadu waxay heleen meesha uu joogo Bele waxayna isla markiiba ku fureen rasaas inkasta oo la weeraray Bele si majlis ayuu uga badbaaday wuxuuna gudaha u galay keynta isagoo keynta dhex maraya Bele ugu dambeyn wuxuu la kulmay xeyn maroodi ah halkaas ayuu kula kulmay gabar dhalinyaro oo lagu magacaabo Thane marka hore Thane wuxuu malaysay Bele inuu ka mid yahay ugaarsatada laakiin markay maqshay sheekadiisa waxay garatay in isagu yahay qof la ugaarsanayo Thane waxay u sheegtay inay tahay qof deegaan ka mid ah oo si qorsooday ugu nool keynta maadaama ay taqaan dhammaan wadooyinka qarsoon ee keynta waxay u bandhigtay Bele inay ka caawiso inuu baxsado intii wada safreen Thane waxay Bele u warantay walaalkeed maqan oo la yiraahdo Fang waqti hore ugaarsada waxay bartilmaan ka dhigteen isaga isla ciyaartan oo kale waxay soo kala sharxay in dad badan oo tuulooyin ku deganaa ay markii hore si nabad ugu noolaan jireen keynta laakiin markii dambe janarka iyo raggiisa ayaa dadka ku qasbay inay ka guuraan deegaanka kuwii diidana waxa loo ugaarsan jiray si dadka taajiriinta ay ugu madadaashaan ka kale Adrich wuxuu ka codsaday janarka in kooxda ugaarsada la siiyo mootooyin ay ku dabagalaan Bele iyagoo adeegsanaya diyaarad daroonka ugaarsada waxay heleen meesha uu joogo Bele waxayna ogaadeen in la socoto gabar markii taas arkeen ugaarsada aad buu farxan sababta hadda waxay heleen 2 bartilmaameed waxay kadib ugaarsada waxay fuulo mootooyinka waxayna si xawaaro sare u ereedeen Bele iyo Thane intii lagu jeerashay Bele wuxuu ku guuleystay inay hal mar wada ridaan 2 mooto Bele ayaa markaas qaatay mid kamid ah mootooyinka dhacay wuxuuna si degdeg ugu baxay meel ku taal aqal duug ah xir kadib dagaal ayaa halkaas ka qarxay Sophie wax isku dayday inay Bele ku weerarto mindi laakiin Bele iyo Thane si fudud ay u adkaadeen si kastaba ha ahaatee Bele ma uusan dilin yaa beddelkeeda wuxuu si degdeg ugu noqday mootadii si uu badbaadiyay Thane oo ay qabteen Chap iyo Toby kamid ah ugaarsatada ayaa damcay inuu xadgudub u geysto Thane laakiin xubin kale kooxda kamid ah ayaa ka carooday arrintaas uuna iska dhaqaaqay si ka doon kuwa kale isagoo ma jecleen arxan darada bilaa macniga ah markii Bele ugu dambeyn u yimid goobta wuxuu ogaaday in Chap mar hore la dilay kadib dhacdaas naxinta leh Bele iyo Thane waxay sii wadeen socdaalkooda gudaha keynta dadka kale ugaarsatada markii heleen meydka Chap Adrich aad ugu carooday Toby sababta wuxuu aabiis uga tagay kaligiis Chap wuxuu
lacag aad u fara badan ku bixiyay safarkan ugaarsiga maadaama uu doonayay in wiilkiisa uu noqdo qof geesi oo aan cabsi lahayn waxay kadib Aldrich wuxuu ogaaday goobta saxda ee Belle joogo wuxuu si qorsoodey qalab GPS ugu dhex qariyay dhagaxii rubiga ee uu siiyay Belle markii ugaarsiga ku soo dhawaadey meesha uu joogo Belle Aldrich wuxuu uga digay ugaarsada weyn inay taxadar sameeyaan sababta Belle hadda wuxuu noqday mid aad u khatar badan ugaarsadii ayaa qaatay qorigiisa wuxuu si dib u dhaqaaqay goobta laakiin Belle ayaa markii hore isaga arkay wuxuuna isla markiiba xaggiisa u riday xabad isla waqtigaas Toby si kama ayuu ku ciyay meel u dhow yaalay Belle si dirqa uga badbaaday qaraxa wuxuuna si amaan uga baxsaday goobta markii habeenku soo dhacay Belle iyo Thane waxay gaareen god ay Thane hore ugu tagi jirtay walaalkeed Fan markii godka kale Thane aad buu la yaabtay markii aragtay Fan oo weli nool farxad darteed Thane si degdeg ah ugu carartay walaalkeed oo isku duubtay maadaama ay habeen noqdeen waxay go'aantay in godkaas ay ku hoydaan kala ugaarsada waxay xerooda ka samaystay meel u dhow iyagoo aan ogeyn sida ay u dhow yihiin su'aal xigtay Belle ma ku soo tusay wuxuu ogaaday in Thane walaalkeed Fan ay qaateen dhagaxii rubiga ah oo ay baxsadeen si degdeg ugu baxay dibadda si uu raadiyo meel fog ayuu ka arkay labadoodu ay qabteen ugaarsatadu Belle si qorsada ay ugu soo dhawaaday Marshall wuxuuna qabtay si lama filaan kadib Belle wuxuu Marshall horkeen ugaarsada wuxuuna uga digay wuxuu dalbay in Thane Fan la sii daayo haddii ay rabaan in Marshall uu noolaado inkastoo ugaarsadu ay raali ka yihiin haddana waxa lagu qasbay inay sii daayaan labadooda laakiin markii ay sii daayeen ugaarsato mar kale ay hubkooda ku jeedeen Belle iyo Thane Belle markii wuxuu Thane ku amray inay cararto istaba haatay Sophie ayaa si lama filaan hortooda uga soo muuqatay iyadoo qori ku haysa Thane Sophie waxay dagaalyahan aad u xirfad leh waxayna ku koracay Thane si dhaqso ah كثير مقصن واحد كدب يدنا سيد دقايق ولا دقالنت دقاق عش كدب ثاني واحد كقول يستئني يدش صوفيا كلا وقاصد كلا واحد سي وذا إني بالي كدب جيران جودها كينتا كي أسر وادين بالي ثاني واحد مركلا كقاعدين وير لما فلانة أنت جهوريك وسعد واحد وير وقاصد كدين واحد كبحسن يجوز كتوريا وبيجا ده كدب بالي واحد مركلا لم يدو فان ثاني اللي قال ثاني واحد بيقول على سير رجع روبيجها واحد أشكت إني قاعد روبيجا صابته جنا كوح أفضل الأوقف وطولين كدجنا وحنا رجعنا سي إني كبدش رجع حقالي سيدات كسلوسي دايو دي بالي وفهم صابت ما أنا وسعران كبدل كذا وحس دقن ولا بحي كاميرادii oo hore uga soo xaday Marshall Belle si degdeg ayuu uga saaray kaarka xasuusta kaamirada kadibna kaamirada wuxuu ku tuuray webiga si kastaba haatay ugaarsada markii dambe way heleen kaamirada arrintaas waxay ka dhigtay Aldrich inuu aad u caroodo sababtoo Marshall wuxuu si qorsada u duubiyay ugaarsiga oo dhan Marshall wuxuu soo dayay inuu isdifaaco soo sheegay inuu ka mid yahay ugaarsatada wuxuu ku dooday inuu yahay naqshadeey ciyaaraha fiidiyoga oo doonaya inuu sameeyo ciyaar badbaado oo dhab ah in Aldrich wuxuu fahmay haddii muuqaalaas banaan ku soo baxaan in dhamaantood la fashilin doono Aldrich wuxuu si arxan daro isla goobta ugu dilay Marshall marka Aldrich wuxuu garwaaqsay in qabashada Belle aysan fududeyn sidaas daraadeed wuxuu ugu yaray ciidanka janaka inay taageero ka geystaan keynta dhanka kale Belle iyo Fan waxay isu diyaarnayeen inay badbaadiyaan dadka tuulada iyagoo meel ku dhuumanaya Belle wuxuu arkay Aldrich oo jeep ku yimid meesha markaas ay Belle ugu dambeyn fahmay sidii Aldrich uu ogaan jiray mar walba meesha uu joogo wuxuu ogaaday in Ruby ku xiran yahay qalab GPS ah Belle isla markiiba wuxuu sameeyay qorshe cusub wuxuu go'aansaday in Rubyga laftiisa u adeegsado dam inuu Aldrich ugu dhigo wuxuu Fan u diray inuu la baxsado Rubyga iyo kaarka xasuusta si runta ku saabsan ugaarsatada maalin loo shaaciyo dhanka kale Belle kaligiis ayuu ku safray keynta isagoo saaran doon alwaax ka samaysan hadda ciidanka oo dhan iyo ugaarsatada ayaa raadinaya isaga inkastoo cadow badan ay ku hareeraysanayeen Belle wuxuu sii waday inuu si geesnimo u dagaalamo wuxuuna ka adkaaday dhowr cadow ugu dambeyn Belle wuxuu gaaray dhinacii kale ee keynta halkaas ayuu ku arkay Aldrich iyo ugaarsada kale oo qoryo ku haya dadka tuulada markii ugaarsadu ku hanjabay inay dilayaan ilmo yar Belle wuxuu ku qasbay inuu ismuujiyo Aldrich wuxuu isla markiiba ka dalbaday Belle kaarka xasuusta ee kaamirada seeshi halkii uu siin lahaa dagaal aad u culus ayaa bilaabmay Belle wuxuu u dagaalamay si cajiib ah manager ugaarsada kale oo si fudud u adkaan karay mid kamid ugaarsada ayaa si toos ah u weeraray Belle laakiin Belle ayaa ka adkaaday dagaal culus kadib oo si xun u dhaawacay kadib Belle wuxuu disay Aldrich wuxuu si xoog ula dagaalamay isaga isla markii Belle ku sigtay inuu soo afjaro dagaalka walaalkiis ayaa si lama filaan u hareereeyay la waqtigaas Fan wuxuu gaaray tuulada wuxuuna Rubyga u dhiibay janaka si loogu badasho xorriyadda dadka tuulada janaka wuxuu muuqday inuu aqbalay heshiiska oo si nabad ah uga tagay goob kastaba haatee Aldrich ma doonay in arrintu sidaas ku dhamaato wuxuu qabsaday hubka janaka wuxuu isku dayay inuu sii wada rabshada koor intuusan wax kala sameyn askartii janaka ayaa rasaas ku firay Aldrich halkaasna way ku dileen ugu dambeyn dadkii tuulada ayaa laga xoreeyay gacantii ugaarsada janaka markii dambe waa la xiray waxaana lagu xukumay xabsi daa'im sababo la xiray falalka sharci darrada ee keenta ka socday kadib markii wax walba dhamaadeen Belle iyo Thane way isguursadeen waxayna tuulada ka fureen dugsi lagu barto fanka dagaalka halkaas inuu filimku ku soo dhamaaday